الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة قريش. quraysh suuradeeda waa suurad maka ah ama makiye ah. suuradaha maka ku soo degay ayay ka mid tahay. sida magaceeda aad ka fahmi kartaba nimankii reer quraysh ayayna markaasi toosa uga hadlaysaa ama ay ula hadlaysaa. saan la socona quraysh waxay ahaayeen niman sukaaniin ah oo xaramka agtiisa degan. beledka ama dhulka ay degan yihiinna saxaro ayuu ahaa, waa dhul oomano waxba aan ka bixin, nabaad iyo waxba. sidaa darteed baa ayagoo saas ah wuxuu ilaahay siiyey nicmooyin gooni ah. waa mar waa la ixtiraami jiray oo waxaa la dhihi jiray waa dadkii xaramka deganaaye faraha laga qaado, lama taaban jirin, dhib lama gaarsiin jirin. ayagoo weliba dadka gaararka jooga la dafdafaayo yo ayagoy aamin ahaayeen. sida ilaahay tilmaamay, awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhatafu annaasu min xawlihim. dadka gaararkooda jooga waa la dafdafaa oo dagaal baa ka jira, laakiin dadkan dad ilaahay leeyahay waayee hala dhaafaa la dhihi jiray. idan xarbi iyo qoof oo dhan aamin bay ka ahaayeen. dhinacan kale marka la fiiriyo dhulkooda bacdamaa juuc iyo baahi uu yahay, haddana way dharagsanaayeen. laba rixladood ayuu ilaahay baray subxaana wa tacaala, rixlatu shitaa iyo rixlatu sayf. xilliga shiftaha uu yahay, xilliga shitaha uu markaa yahayna waxay aadi jireen shaam. xilliga sayfka ama jilaalka uu yahayna yeman bay aadi jireen. laba rixladood ayay barteenay ka caado dhigteen. wax allaale wixii meelkaa looga baahan yahay dhulkooda yaal intay qaadaan iyo dhulkaa geynayaan. shitaha iyo sayfka labadaa wadan bay u kala baxayaan. markaasaa waxay soo helayaan ribix aad iyo aad u badan. dhulkooda oo saxaro ah oo lamadegaan ah oo haddana aan waxba ka bixin iyo haddana baahi ka aamin ahaayeenoo ilaahay ka quudiyey. weliba xaramka markaad fiiriso ama dhulkaa barakaysan, wax walba oo baxa oo adduunka yaal waad ku arkaysaa, sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. awalam yarow, miyayna arkin buu ilaah yidhi aayad kale asoo tilmaamahaya, in yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay. miro kastaa loo soo jiidaa oo meesha markaa loo keenaa. waa risqi ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. ceebta jirta marka maxay tahay? ceebta ay reer quraysh sameeyeen waxay tahay, labadaa rixladood bay barteen oo ilaahay baray. cabsi ayaa laga aamin yeelay, baahina ilaahay waa uga gargaarayay, juuco waa laga quudiyey. haddana kacbada dhexdeeda ayaa waxay ku caabudi jireen asnaam. 330 sano ayay ka dhex sureen kacbada gudaheeda, taasay markaa caabudi jireen. marka quraysh baa lala hadlayaa oo waxaa la leeyahay, isku xishooda qurayshay, sidaa ma aha, saad ku socotiinna waa qalad. weliba markii suuraddii aan soo marnay fiila ay dhacday oo nimankii maroodiyaasha ilaahay ka difaacay ayagoon farna qaadin, waxaa sii weynaatay cadamada iyo sharafta ay uu beydku leeyahay iyo dadka xaram ka degan qiimaha ay markaa leeyihiin, tiiba markaa ziyaaday. marka waxaa la leeyahay, war barashada aad barateen shitaha iyo sayfka rarashadooda idinma barin asnaamtaad caabudaysaan. ilaahayaa idin baraya jooga oo rabbiga beydka iskala caabuda oo asnaamta iska daaya oo ilaahay usoo rujuuca qurayshay, dad shiixayo xishoonaya noqda. macnuhu waa sidaa. bismi illaahi araxmaani araxiim. liiilaafi qurayshin, quraysh barashadeedii, iilaafihim oo ay barteen, rixlata shitaa'i xagaaga rarashadiisa, iyo wasayfi waa rixlata sayf, jiilaalkaoo marna ay shaam aadayaan marna ay yeman aadayaan. barashada ay barteen ilaahay baa baree, falyacbuduu ha caabudaana rabba haada albeyt, beydkan ee kan ah rabbiga iska leh, alladii ilaahay ha caabudaano, acamahum ka quudiyey, min juucin baahi xaggeeda, wa aamanahum kana aamin yeelay, min khawfin cabsi xaggeeda. war asnaamta ma barina, ilaahay baa baray. rabbiga beydka iskalaa baray, ha caabudaano. haddii intaasoo wanaaga loo galay haddana ay sanad caabudayaan, qoraysh wax u habboon ma aha.
wax u fiican ma aha liiilaafi quraysh ka caada yeelashadeedii dheh haddii kale iilaafihim ay ka caada yeesheen caada yeelashadaasoo rixlata shitaa'i wasayf ay ka caada dhigteen rarashada iyo safarka shitaha waa xilliga xagaaga iyo wasayfi jiilaalka sayfkana yaman bay aadi jireen shitahana shaam bay aadi jireen labadaa rixladood oo ay barteen oy ka caado dhigteen sababteed falyacbuduu ha u caabudaana rabba haada albeyti beytkan ee kan ah waa xaramkee rabbiga iskale ha caabudaano ma barin asnaamtay hadda caabudayaan arrintaasi waxaa ku gubaabiyey oo ku tirtirsiiyey oo waafajiyey waa ilaaha beytkan iskale asagaa cibaado mudan asagaa cibaado u qalmee ha caabudaana alladii ilaahii atcamahum ka quudiyey min juucin gaajo xaggeeda macnaha dhulkooda waxba kama baxo dhul saxaraa waaye waa dhul dhagxaan ah ayadoo saas ay tay haddana dharagsanaayeen labadaa rixladood ay barteen bay ribix badan ku heleen markaasay wax kastoo raashina ku heleen baahi xaggeeduu ka quudiyey waa dhul gaajo ah wa aamanahum kana aamin yeelay min khawfin cabsi marka qurayshaa si fiican loola hadlayaayo waxaa la tilmaamayaa quraysh si kastaba ha ahaato caqligooda iyo garaadkooda meel kasta ha gaaro caqligu hadduusan diin la socon faa'iida ma leh waad u jeedaa caqli waa midka lagu bartay rixlatu shitaa wasayf waxyaabo fara badan la keensay tacaan badan la helay ilaahay khoofkii cabsidii ka aamin yeelay haddana asnaam lagu caabudayo caqliga hadduusan saliim noqonin ilaahayna ku xirnayn tawxiidna uusan wadanin faa'iida ma yeesho haddaan diin lagu kabin caqli diyaaraad baa lagu sameeyey iyo dabaabada iyo dayax gacmeed ilaahayna waa lagu caabudi la'yahay haddii caqli qiimo leeyahay oo markaa wax taraayo nimankaanaa la leeyahay caqli gaab waa ku jirtaan qoraysh oo lagu tilmaamo dadka ugu garaadkii caqliga badan inay yihiin iyo sida ay wax u barteen haddana dhagax iyo qori ay markaa u caabudayaan tibaa lagala dagaalamayaa liiilaafi qoraysh barashadeedii ama ka caada yeelashadii iilaafihim ay ayagu ka caada dhigteen rixlata shitaa'i xagaagii rarashadiisii wasayf jiilaalka falyacbuduu ha ay caabudaana rabba haada albeyti beytkan ee kan ah rabbiga iska leh alladii ilaahi ha caabudaana atcamahum ka quudiyey min juucin gaajo xaggeeda wa aamanahum kana aamin yeelay min khawfin cabsi oo dhan suuratulmaacuun maacuun suuraddeeda ayaduna waa suurad saasoo kale ahoo in badan bay ka hadlaysaa dadka beenisan maalinta qiyaamaha dadka inkirsan ilaahay diinkiisa tilmaamaha lagu yaqaano taariku salaadiintii dadka salaada markay tukanayaan salaadaha xumeeya iyo waxyaaba markaa la mid ah ara'ayta aladii kii ma aragtay rasuulka ilaahayow yukadibu beeninahayay biddiini maalinta qiyaamaha fadaalika kaa alladii waa midka yadcullyatiima agoonta riixa agoontuu gadaal u riixaa duciga waa qofka inta gadaal looga yimaado saas xoog loogu tuuro yowma yudacuuna ilaa naari jahannama dacan oo kale waa qof inta gadaal loo yimaado asagoon filiin inta la qabto horay markaa loo tuuro si dafci ahoo xoog badan saasay markaa agoonta sameyn macnaa agoontay dhibaan baa laga wadaa agoontaysan wanaajinin agoontay xumeeyaan walaa yaxudu mana ku guubaabiyo calaa tacaami almiskiin walaa yaxudu aanana ku tirtirsiinaynin dadka oo aan faraynin kuna guubaabinaynin calaa tacaami almiskiin miskiinka quudintiisa fawaylun halaag lilmusalliina kuwa tukada ayuu u sugnaaday alladiina kuwaasoo hum ayagu can salaatihim salaadooda saahuuna halleeya salaadooday saahuun ka yihiin ama kaafiliin waayo wayba ilowsan yihiin salaaday tukanayaan maba yaqaanba waa ku jiraa salaada haddana ma oga salaaduu tukanayo alladiina waa kuwa hum ayagu yuraa'uuna istustusaya dadka wayamnacuuna almaacuun maacuuntana manciya wayamnacuuna waxay mancinayaan oo ay ummadda u diidaan oo ay ka reebaan almaacuuna maacuunta waa wax kasta oo khayra oo markaa la sameeyo waa wixii wanaag ahoy dadku markaa qabtaan waa wax walba oo qofka ilaahay agtiisa loogu dhowaan lahaa maacuun amase waa alaabaha dadku ay kala adeegtaan oo qaadada iyo cirbadda iyo dunta iyo waxyaabaha lamidka ah oo dhan taasaa markaa ah sidaa darteed buu ilaahay tilmaamayaa subxaana wa tacaala ara'ayta aladii
kii ka waran rasuulka ilaahayow ara'ayta haddii kale ma aragtay alladii midka yukadibu beeniyey oo beenisan biddiini jazaha iyo abaalmarinta maalinta qiyaamaha midka inkirsanayaan ogoleen ee diidaya rasuulkii allow kaa ka waranba xaaladiisa ara'ayta ma aragtay ama akhbirnii waxaad iiga warantaa alladii yukadibu biddiin diinka waa maalinta qiyaamaha maaliki yowmi ddiin diinka waxaa loogu bixiyey waxaa dhacaya cadaaladda dhabtaa maalintaa imaanaysa sidaa darteed buu ilaahay tilmaamayaa midka beenisan qiyaamaha iyo maalinta diinka ah in calaamadda ama tilmaamaha lagu yaqaano ay tahay inuu agoonta dhibo fadaalika ka alladii waa midka yadculyatiim agoonta riixa agoonta ayuu dafciyaa agoontuu xaqooda u diidaa abijahl bay si qaasa u tilmaamaysaa bay mufasiriinta qaar yidhaahdeenoo ku yaro agoona xoolihiisii buu haayey soo markaa u celinayo xoolahayga isii markii la yidhi buu diiday mar allaala markuu inkiray uu diiday kabacdi buu nebigu ku dacweeyey nebigaa u yimid oo yidhi sii ninka xoolihiisa degdeg buu ugu soo bixiyey wuuna markaa siiyey ara'ayta aladii yukadibu biddiin waxaad fiirisaa ood aragtaa ama aad iiga warantaa ama ma aragtayba alladii yukadibu midka beeninaya biddiini maalinta qiyaamaha waa tilmaamo lagu yaqaano qofka maalinta qiyaamaha beenisan inuu agoonta xoolihiisa cuno inuu agoonta dhibo inuu agoonta wanaajin waayo low maalinta qiyaamo uu rumaysan yahay agoontuu hagaajin lahaa macnaha agoontuu fiicnayn lahaa agoontuu dhaqaalayn lahaa wayas'aluunaka cani ilyataama agoontay ku su'aalayaan ee qul islaaxun lahum in la islaaxiyo oo la wanaajiyo oo wanaag loo sameeyaa khayr badan dheh buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala wain tukhaalituuhum haddaad isku xoolo darsataanna fa ikhwaanukum waa walaalihiin agoonta xoolihooda iyo xoolihiina haddaad isku darsataan laydinma diidanaa walaalihiin waay waad isla shaqaysan kartaan xoolihiisa waad u hayn kartaa qof allaala qofkii xoolo agoon haaya sida ilaahay tilmaamay hadduu faqiir yahayna falya'kul bilmacruuf si macruufa ha u cuno hadduu qani yahayna waliyastacfif ha iska ilaaliya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala ha ku cunina xoolaha agoonta israafan wabidaaran ayakbaru idinkoo ka cabsanaya inay idinku soo weynaadaan xoolo agoon baad haysaa hadhow adoo ka cabsanay inuu kugu soo weynaado xoolihii kaa qaatuu kaala dagaalamo ha samayn inaad degdeg u cunto si wixii ay uga baaba'aan taasuu tilmaamayaa ilaahay subxaana wa tacaala ee uu leeyahay wayas'aluunaka cani ilyataama qul islaaxun lahum khayrun in la islaaxiyo agoonta la fiicneeyo la hagaajiyaa khayr badan weliba aayadda tilmaantay qofkii faqiir ahna falya'kul bilmacruuf qofkii taajir ahna waliyastacfif waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa macruufka cunitaankeeda hadda ha cuno meel ha ku qoro hadhowna ha soo gudo markuu xoolo helo taa xataa waa lagu fasiraa saa darteed baa waxaad ka fahmaysaa xoolaha agoonta dhibka ay leeyihiin ara'ayta aladii kii iiga waran yukadibu beeninayay biddiini maalinta qiyaamaha fadaalika kaa alladii waa midka yadculyatiima agoonta riixaya agoonta dafcinaya agoonta dhibaya agoonta xaqooda u diidaya dhammaan saas ah walaa yaxudu aanad tirtirsiinaynin ummadda aan ku guubaabinaynin calaa tacaami almiskiin maskiinka quudintiisa maskiinka in la quudiyana dadka fari maayo lama dhihin asaga wax ma siinayo iska daa waxa jeebkiisa ku jiree wuxuu ka baqiilayaa waxyaabaha dadka jeebkooda ku jira saa darteed intaad istaagtood dhahdo warhoy masaakiin waxaa loo taro oo dadka guubaabisaa ajir lagugu siina oo aad la mid tahay qof wax sadaqaystay oo kale tii xataa lagama haayo walaa yaxudu aananad ku tirtirsiinaynin ku guubaabinaynin ummadda calaa tacaami almiskiin maskiinka quudintiisa fawaylun halaag adag cadaab daran lilmusalliin musalliintuu u sugnaaday waa kuwa tukadaa qof kastuu tukada ma ahee alladiina waa kuwa hum ayagu can salaatihim salaadooda xaggeedaba saahuuna ilowsan sahwigaa macno badan baa lagu tilmaamaa waa kuwa salaada wakhtigeeda ka akhira kadib dhiga waxay tukanayaan salaada munaafiqiinta oo kale cadceeddu markay dhici rabto casirka yaa sidii quraabka dhiigga cunaya oo kale 2 mar ama 3 mar ama 4 mar afdhufasho dhulka ay ku dhuftaan waa markay salaadu casirka baabi'i rabto salaada subax markay qoraxdu soo baxdana
saasoo kale markaa sameeyaan. waa qolooyinka noocaas ah. waxaa kaloo saahinta layidhaahdaa waa qofka haddii awalka uu ka tukado uusan ku farxin, hadduu aakhirka ka tukadan uusan ka nixin. waayo mararka gobol ka mid ah qofka waxaa la rabaa inuu kala duwanaado. mar allaala marka bilowga aad ka tukatana khushuuceedii iyo wanaageedii inay ku farax geliso ood ilaahay kuu dhoweyso subxaana wa tacaala. mar allaala mararka gobol ka mid a haddaad habsaantana murug ay kugu abuurto. saa darteed baa qofkan sidaas uusan ahaynoo labada xaaladba waa isugu midba. aladiina hum can salaatihim saahuun, salaadoodayba sahwisan yihiin. can salaatihim baa la yidhi ee fii salaatihim lama odhan. ilaahay baa mahad iskale fii salaatihim aan dhihin. waayo fii salaatihim haddii la yidhahdo dhammaantiin waan ku jirnaa. salaada gudaheeda wax waa lagu sahwiyaa. marka gobol ka mid ah qofku isagoo tukanayu kala garan weynayaa meeqaa tukatay ma 3 mase waa 4. marka waa dhibaato. xataa axaadiista gobol ka mida way tilmaameen, nebiga way ka dhacday sala allahu calayhi wasalam 4 rakacadood meel laga rabay inuu 2 rakacadood tukaday. intaa kabacdu iska salaamo noqsaday. kadib markii loo sheegay rasuulkana uu 2dii kale ku daray. kadibna sujuudu sahwi uu markaa sameeyey. waa salaadii gudaheeda. laakiin dadkan salaadii xaggeeda dhan bayba ka sahwisan yihiin. waa haafiliin. wuu istaagayaa. wuu istaaga ilaa uu ka baxo. hal mar khushuuc ma jiro. hal mar uu salaadii ku dhex khushuucayo amase uu ku garanayo, ku ogaanayo inuu ilaahay ku hortaagan yahay ma jiro. sidaa darteed buu ilaahay tilmaamayaa subxaana wa tacaala walaa yaxudu ee fawaylun lilmusalliin. dadka tukada ayuu halaag u sugnaaday. aladiina kuwaasoo hum ayagu can salaatihim salaadooda xaggeedaba saahuuna ilowsan dheh, sahwisan, haafiliin ka ah, wakhtigay kadib dhigaan. aladiina hum waa kuwa ayagu yuraa'uuna istustusa dadka. markay tukanayaan riyaabay u tukadaan. waa calaamadaha munaafiqiinta. waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala. markay tukanayaan waxay ku tukanayaan wahsasho buu yidhi ilaahay, ayagoo kusaale iyo caajis ah, ayagoo wahsanayay tukanayaan. yuraa'uuna annaasa dadkay istustusayaan. walaa yadkuruuna allaha ilaahayna ma xusaan ilaa qaliilan. marka yuraa'uuna annaas istustuska waxyaabaha camalada buriya. sidaa darteed buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam, ilaahay wuxuu yidhi anigu waxaan ahay mid ka kaaftoon oo ka deeqtoon shurakada wax laysugu daro shirkigooda, wax la wadaajintoodan ka kaaftoomaa. qof allaala qofkii camal qabta, camalkaasoo aniga micigayga kayrkii uu ugu shariig yeelo, taragtuhu shirku, asagii shirkigiisa waa isaga dhex tagaa. uma baahnaba ilaahay subxaanahu wa tacaala. idan ikhlaas ayaa loogu talagalay. riyaha iyo istustuska waa shirki asqar ah. marka saa darteed baa waxyaabaha ugu xunxun uu ka mid yahay. munaafiqiintuna way sameeyaan. waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaalaa, wahsashay ku kacaan. yuraa'uuna annaas dadkay istustusaan. walaa yadkuruuna allaha ilaahayna ma xusaan ilaa qaliilan in yar maahane. saa darteed baa dadka weylkii halaagu u sugnaaday. waa dadka salaadaha intay tukadaan salaadiiba ilowsan ay tukanayaan, ama sahwinaya, ama haafiliinkaa, ama xumeeya, amase wakhtigeedaba kadib dhiga. aladiina hum waa kuwa yuraa'uuna istustusaya dadka. wayamnacuuna waxay manciyaan oo ay dadka u diidaan almaacuun, maacuunta waxyaabaha la kala adeegtaa la yidhaahdaa. waa wax walba wixii in la bixiyo mutaysatay. wax walbo ummado lagu saacido say noqotaba, alaabta guriga ha noqoto, sadaqa ha noqoto, khayr qofka loo sheega ha noqdo, maacuun oo dhan iyo wax kasta oo khayr ah oo ummadda anfaca, taana manciyo oo markaa diida. suuratulkawthar, kawthar suuradeeda ayaduna waxay tilmaamaysaa nebiga nimco weyn oo markaa la siiyey. weli waxay tilmaamaysaa baa la yidhi mar allaala markuu dhintay wiilkiisii ugu dambeeyey ee ibraahim ahaa, ayay yidhaahdeen maxamed waa abtar, wuu dabago'ay. mid dabago-an waayo oo abtar buu noqdayo waa gablan. diintiisa wax wadayaa male ilaa intuu dhinta keliyaan sugaynaa. gabdhaa u soo haray, gabdhana wax ma wadi karaan. saa darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sabargelinayaa. qofka abtarka inuusan asaga ahayna loo tilmaamayaa. abtarku waa qofka xaqa iyo diinta ilaahay diiday. waa abijahal, waa ubay ibnu qalaf, waa cuqba ibnu abi muciid ninka lagu magacaabo, iyo inta markaa lamidka ah. inna anagu acطaynaaka waxaan ku siinay alkawthara, khayr fara badan baan ku siinay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. rasuulka ilaahayo waxaan ku siinay kawthar.
webigii qiyaamaha ayaan ku siinay inna anagu acطaynaaka waxaan ku siinay alkawthara. kawtharku waa khayr fara badan. fasalli u duka marka lirabbika rabbigaa dartii u duka wanxar gowrac ilaahay dartii u gowrac. inna shaani'aka midka ku dhibaaya huwa asagaa alabtaru abtar ahee kaa asagaa munqatic ahoo dabago-an oo asalkiisii wixiisii baaba'aya oo mar walbo magaciisa la sheega lacanad lagu dul tuurayaa. adimatiid qofka abtarkaa rasuulkii allow diintaadana way soconaysaa xataa hadday wiilashaadii baaba'een kor bay aadaysaa ilaa maalinta qiyaamo way jiraysaa. in allaala inta samaawaadkii arladu ay taagan yihiin way taagnaanaysaa. saa darteed iska dulqaado oo iska sabar. kawthar ayaan ku siinay. inna anagu acطaynaaka waxaan ku siinay rasuulkii ilaahayow alkawthara. kawthar waxaa kaloo yidhaahdaa darka maalinta qiyaamo ay ka cabayaan muslimiinta. darka noocaasa webigii kawthar ayaan ku siinay. waa webi biyo macaan leh, waa webi biyo cad, koobabkiisu ay meesha yaalyaalaan oo laga cabsiinaya maalinta qiyaamo ummadiisa. qof allaala qofkii caba falaa tadma bacdaha weligiis oomi maayo, weligii haraadi maayo. sidaa darteed baa waxaa la tilmaamayaa khayr fara badan inuu ilaahay siiyey. nebinimaa la siiyey, waxaa la siiyey khayr fara badan, waxaa la siiyey mucjizooyin, waxaa la siiyey webigaa kawtharee ummadiisu ay markaa ka cabayaan. sidaa darteed buu ilaah yidhi inna anagu acطaynaaka waxaan ku siinay alkawthara. khayr fara badan baan ku siinay, ama webigii kawthar ayaan ku siinayoo dadka ummadaada aad ka cabsiin doontid maalinta qiyaamaha. man allaala inta ummadiisayahay xaqa raacduu ka cabsiinaya. ummad baan arki doonaa fara badan darkayga laga celcelinayo sida hasha baadida ah markay halaha kala soo dhex gasho sida looga taduudiyo looga celceliyo oo kale ayaan arki doonaa. markaasaan odhan doonaa kuwaasi ummaddeeday ka mid yihiinna maxaa dhacay. markaasaa laygu odhanayaa mar allaala markaad ka soo tagtay kama aysan suulin inay cirbahooda u laalaabanayaan, inay diinxumo la imaanayaan, in diintaadii sunnadaadii ay ka tegayaan. saasay ahaayeen ilaa aad ka soo tagtay. suxqan suxqan baan odhan buu dhahay nebiga, ama fa suxqan liasxaabi asaciir. waayo hasha baadida halaha kale marka ay soo gasho inta la qabtaa garuun lagu tumaa oo gadaal loo ceeriyaa oo la didiyaa. saasoo kale ummad loo samayn doonaa maalinta qiyaamaha anigoo arkaya. markaasaa laygu dhahayaa dhaaf oo faraha ka qaad inay cirbahooda u laalaabanayaan oo ay gadaal u soconayaan kama aysan suuline. inna anagu acطaynaaka waan ku siinay rasuulkii ilaahayow alkawthara. webigii kawthar ayaan ku siinay. darkii maalinta qiyaamaha laguugu talagalay inaad ummadaada ka cabsiisood ka waraabiso kaasaa markaa lagu siiyey. ee fasalli u duko lirabbika rabbigaa u duko. hore waxaan u soo marnay markuu ilaahay tilmaamayay subxaanahu wa tacaala qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa in loola jeeda salaada ciidda soonfur. tanna waxaa la yidhi waxaa loola jeedaa waa salaadii ciidi carafo. fasalli u duko lirabbika rabbigaa u duko, rabbigaa dartii u dukiyo cibaadada u qabo. waa salaada ciidda. wanxar gowracna. idan salaada iyo xoolaha oo la gowraco maalinta carafada salaadaa horaysa, kabacdi baa udxiyada la galaa oo xoolaha udxiyada markaa la gowracayaa. bacdamay sidaa tahay ayaa qofka muslimka ah waxaa loogu talagalay inuu tartiibtan u wado. rasuulku maalin ciid adxaa intuu ummadda u qudbeeyey ayuu yidhi qof allaala qofkii qalay ridiisa salaada intaan la tukanin ka hor waa laxm, waa hilib uu u geliyey ehelkiisii. qof allaala qofkii salaada markuu tukaday kabacdi gowracayna waa nusug oo waa hadyigii iyo wixii markaa loogu talagalay. markaasaa nin istaagu yidhi yaa rasuul allah, maanta waxaan ogaaday maalin ciid inay tahay. ridaydii waan soo gowracay intaanan soo tukanin ka hor, kabacdi waxaan jeclaystay inay maanta noqoto ridayda waxa ugu horeeya ee lagu qala guriga. intaa kabacdi waaba ku soo quraacday buu yidhi. markaasuu rasuulku yidhi laxmuka laxmu shaat, ridaadu waa rihilibeed. adoo inta suuqa miijis ka tegey ciyaalkaaga hilib u soo gaday waxma dhaantid. nusuk ma ahan,
nusugu waxaa loogu talagalay qofku inuu sunnada waafaqo oo mar allaala marka ciidda uu soo tukada kabacdi uu ka soo laabto ninkii udxiyo samaynaya markaa kabacdi inuu xoolaha qalo, laakiin ma aha salaada horteed in la qalo. fasalli u duko lirabbika rabbigaa dartii u duko, wanxar gowrac lirabbika weliba, qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay kayrkii ha caabudin, ilaahay kayrkii ha u tukanin, ilaahay kayrkii waxa u gowracin. lacana allah, allah lacanada man dabaxa ligayri illaah, qofka ilaahay kayrkii wax u qala, boorana qofkii wax u qala, jinni qofkii wax u qala, wadaada laqaayo qofkii wax u qala, wixii lamid ahoo dhanba intaasoo dhan nacalada ilaahay ha ku dhacdo. suu xadiisku tilmaamay, wanxar macnaha gowrac oo lirabbika, rabbigaa dartii u gowrac. markaad wax qalayso waa inay ilaahay dartii noqoto. ina shaani'aka, midka ku dhibaya huwa alabtaru, asagan qatica, asagaa dabago-an, asagaa baaba'ay, asagaa ebir noqonaya. rasuulka ilaahayow adiga tuko, ilaahay ateec, xoolahaada gowrac, rabbigaa u soo rujuuc, khayrkaa faraha badanna waa lagu siiyey. hadalka ee wadaana dhegnaha u dhigintiibaa dhacday. nebigu abtar ma noqonin. nebiga sala allahu calayh wasalam sunnadiisii kor bay noqotay. ummadda ilaa maalinta qiyaamay jecel yihiin, naftooday ku furanayaan, sunnadiisii baa la noolaynayaa. dhibaato fara badan waxaa gaaray dadkii ku tilmaamay inuu nebigu abtar yahay sala allahu calayhi wasalam. suuratu lkaafiruun, suuradda lagu magacaaba alkaafiruun, sida magaceeda aan ka fahmi karna kaafiriintay ayaduna ka hadlaysaa. suuradihii maka kusoo degay ka mid tahay. mar allaala markay maaro u waayeen diintaanana ay arkeen qorayshi inay kor un usii socoto oo mar walba ay sii raagayso oo mar walba ummaddu ay sii jeclaanayaan, nebigana uusan ka harayn. muxaawalaad kastay isku dayeen, muslimiin la baabi'iyey, nebiga laftiisa xataa isku dayeen inay dhib gaarsiiyeen, abi taalib lagu dacweeyey. yay markii dambe waxay keeneen mufaawadaad wax la yidhaahdo gorgortan. nebigay u yimideen sala allahu calayhi wasalam, markaasay dhaheen muxamedow sanadna ilaahayna nala caabud, sanana kaaga aan kula caabudno. waxadka aad caabudayso haddii khayr ku jiro, sanadkaan caabudnay aan dheeftiisa ka helno, midkaan anaga caabudayno uun hadduu fiican yahayo kaaga laga fiicnaadana intaad nala caabuday khayr un markaa ku hel. isku soo dhowaasho ma jirto. wadduu low tudhinuu fayudhinuun, waxay jeclaysteen inaad u dabacdo ayaguna ay kuu soo dabcaan buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. ee falaa tudic kulla xallaafin mahiin, ha yeelin warkooda, ha ateecin rasuulkii allow, amarkooda ha qaadan. suuraddan baa soo degtay. qul waxaad ku dhahdaa rasuulkii allow, haddayba ku dhaheen sana nala caabud, sanana aan kula caabudno, hadal jiljilicsan iyo hadal fiicfiican iyo haba ugu bilaabin. yaa ayuha alkaafiruun, kuwiinaan gaalada ahow, yaa ayuha alkaafiruun, kaafiriintaanow, laa acbudu, caabudi maayo, maa waxa oo tacbuduunaad caabudaysaan, asnaamta iyo dhagxaanta iyo qoryaha iyo laata iyo cuza, waa maa oo dhan oo tacbuduuna aad caabudaysaan. walaa antum adinkuna ma tihiin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu, allahaan caabudayo, allaha xaqee aniga aan caabudayo kuwa caabudayaa ma tihiin. walaa ana, aniguna ma ihi caabidun, mid caabudi doona mustaqbalka maa cabadtum, waxaad caabudaysaanoo dhagxaanii asnaam ah. walaa antum, adinkuna ma tihiin caabiduuna kuwa caabudaya mustaqbalka maa acbudu, waxaan aniga caabudayo. lakum diinukum, diinkiinaad leedihiin, waliya diin, anna diinkaygaan leeyahay. waxaad arkaysaa isku soo dhowaasho iyo diin ha la mideeyo iyo halaisku tanaasulo iyo waa kala bax, waa la kala caddaynayaa. gaalow xagga istaag adiga, muslimow adigana ka soocan oo dhinac kale markaa imow. fiiri sida loogu jawaabay. qul yaa ayuha alkaafiruun, kaafiriintaanow, war gaaloy, mar haddaadba leedihiin asnaamteena hadday fiican tahay uunsana nala caabud iyo waxuun ay rajo noocaasay idinkaga jiraan, cibaadadiinu ma noqonayso cibaado qiimo iyo wanaag badan yeelataa, ma noqonayso mid darajo iyo sharaf lagu gaaro. qul dheh yaa ayuha alkaafiruuna, kaafiriinay, war kubiinaan gaalada ahow, laa acbudu, anigu ma caabudayo maa tacbuduuna, waxaad caabudaysaan. wax allaala waxa aad caabudaysaan aniga mid horay u soo caabuday ma ihi, ama laa acbudu maa tacbuduuna, ma caabudi dooni mustaqbalka soo socda iyo haddaba maa tacbuduuna, waxaad caabudaysaanoo asnaam iyo dhagxaan iyo qoryo ah. walaa antum adinkuna ma ihidiin caabiduuna kuwa caabudi doona hadda iyo mustaqbalba maa acbudu,
waxaan aniga caabudayo iyo ilaaha xaqa ah, walaa ana aniguna ma ihi caabidun mid caabudi jiray. waad dhihi kartaa mid horay u soo caabudi jiray ma ihi maa cabadtum waxaad idinka caabudaysanoo dhagxaan ah, walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwa soo caabuday ma acbudu waxaan caabudayo. lakum diinukum diinkiinaad leedihiin, hoggaansankiina iyo shirkigiinaad leedihiin. waliya diin maxaa diinukum loo yidhi? ayagaa ka diin dhigtay. kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun, macnaha ma aha diin fiican, waa shirkigoodii gaalnimadooda kaasay ka diin dhigteen. qof kastana wuxuu ka diin dhigtaa u diin ah, xisbi kastana waxa agtiisa ahaaduu ku farxaa. kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun, lakum diinukum saasaa loo yidhi. shirkigiina iyo dhagax caabuditaankiina ayaad leedihiin. waliya diini anigana diinkayga saliimka ah ee islaamka ah ee xaqa ah ee ilaahay agtiisa lagaga raaliga yahay kaasaan markaa ku soconayaa ama aan markaa haystaa. idan waa la kala baxay. muslimiintiina dhinac bay u baxeen, kaafiriintiina waa dhinac. isku soo dhowaasha ma jirto. mabda iyo caqiida hadday timaado waa lagu kala baxayaa. saa darteed baa gaalo loo tilmaamay loona caddeeyey isku soo dhowaasho iyo isku soo dabcid iyo inaysan jirin. wixii mucaamalaad adduuna waa gooni, laakiin mar haddii caqiide iyo tawxiid ay timaado ma jirto isku dabacsanaan. suuratu nasri suuraddeeda ayaduna waa suuradaha ugu dambeeyey markaa ka mid ahee soo degaa. suuratu nasri saan magaceeda ka fahmi karno waxay ka hadlaysaa guushii ilaahay siiyey subxaana wa tacaala muslimiinta, weliba fatxu maka. nebiga sala allahu calayhi wasalam sanadii 6aad ee hijrada ayaa wuxuu doonay inuu baxo uuna soo cimraysto. weliba wuu riyooday baa layidhi, wuxuu ku riyooday asagii saxaabadiisa intay xaramkii galeen inay tawaafeen ayagoo aaminiin ah, madaxoodna qaarna xiirtay qaarna gaabsaday. riyadii intuu u sheegay bay aad u farxeen, waayo maka aad bay ugu hilow qabeen in ay gelayaan bacdamuu rasuulku markaa ku riyooday. markay baxeen 1400 bay ahaayeen, waa 1400 qofood. mar allaala markii xudaybe meesha layidhaahda ay gaareen baa loo diiday inay xaramka galaan muslimiinta. ma gelaysiin baa la yidhi. muxaawalaad fara badan baa laysku dayay in nebiga uu ka dhaadhiciyo inuusan dagaal u soconin, laakiin uu doonayo keliya inuu baxo xaramkana galo uuna soo cimraysto kana soo noqdo. si kastaba ha ahaatee way diideen. sanadkaas waaba u diideen rasuulka inuu markaa galo. xataa waxaa loo diray ninka lagu magacaabo cuthmaan ibnu cafaan. waxay dhaheen dawaaf adiga haddaad doonto. wuxuu yidhi ilaa nebi moxamed dawaafa anigu ma dawaafaayo. intaa wixii ka dambeeyey waa tii suuqa la soo geliyey cusmaan waa la dilay oo nebiga mubaayaca uu la galay saxaabada. mubaayacadaasi meyd bay ahayd baa layidhi geeri. laqad radia allaahu cani almu'miniin id yubaayicuunaka taxta ashajarati, geedii hoosteeda yay kula mubaayacoodeen. raalli buu ka noqday 1400 ee qofood oo meesha habeenkaa nebiga kula mubaayacootay sala allahu calayhi wasalam. markii xaalka laysku dayey si kasta oo ragba erga loo soo diray oo erga soo dirsadayaan oo qaar ay leeyihin ha layska sii daayo, qaar ay leeyihiin maya maba noo soo gelayaan, ayaa waxaa la sameeyey heshiis baa dhex maray in nebiga uu ka laabto sanadka uusana soo noqdo sanadka xiga uuna cumraysto cumrada lagu magacaabo cumratulqadaa sanada 7aad ee hijrada inuu soo laabto. waa kow. waxaa go-aanka lagu gaaray inaan la dagaalamin muddo 10 sano ah oo soo socota. waa la kala qortay. waxaa go-aanka ka mid ahaa inbudiyadka iyo qodobadii lagu heshiiyey qof kasta oo muslimiinta ka mid ah oo ka baxa islaamnimada oo gaalada aada inaan la soo celinin. qof kastaoo gaalada ka yimaadoo soo islaama oo muslimiinta u yimaadana in la celiyo. heshiis aad iyo aad u qaraar laakiin nasri noqon doona ayaa lagu heshiiyey maalinta. xataa gobol saxaabada ka mida ay ka xumaadeen arrinta. bismillaahi baa la tiray. waxaa la tiray rasuul allah. waxyaabo fara badan baa la tiray. waxyaabo badan buu tanasul sameeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalinta, ilaa cumar ibnu alkhadaab uu iscelin waayey. uri yaa rasuul allah, miyaan xaq ahayn annaka? miyaan diin ku soconin? miyaan ilaahay raali gelinayn? maxaan raali ugu noqonaynaa? maxaan ugu noqonaynaa oo diinteena dulinimo aan ugu ogolaanaynaa? ilaa cumar abubakar uu u tegay haddana ilaa arrintii ay dhacday oo la dhahay rasuulka allow say wax u jiraan miyaadanna dhihin waxaan ku riyooday annagoo xaramka gelayna. laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaqi baa soo degtay. ilaahay wuxuu u dhoweeyey rasuulkiisa riyadii xaqa ahayd. latadkhulanna almasjid alxaraama, waanu geli oo waa gelaynaa masaajidka xurmada leh inshaa allah baan idin dhahay buu yidhi.
macnaha idin sanadkan baad gelaysaan in shaa allah aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin idinkoo timaha qaybna gaabsanaya qaarkiinna markaa xiranaya. xaaladaas ayuu nebigu u tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. heshiiska maxaa ku jiray in aan la dagaalamin muddo 10 sano ah. waa lagu soo kala tegey. nebiga meeshaasuu ku xalaaloobay. xataa saxaabada murugta iyo tiraayada maalintaa gashay istaagay xalaalooba xiirta buu dhahay. qof warkiisa yeelaa la waay, dhammaan way fadhiyaan, waa la murugaysan yahay. xaramkii loo socday hilowga loo qabay waa loo diiday. bismillaahi waa la tirtiray, rasuulullah waa la tirtiray. qof kastoo muslimiinta soo islaamoo gaalada ka soo baxo muslimiinta yimaada hala celiyaa la yidhi. ku kastoo muslimiinta ka baxoo gaalada u tagay yaan la soo celin baa la yidhi. tii aad bay uga xumaadeen. istaagoo xalaalooba way aamuseen. shib axad ka hadlaa waaye. war timihiina xiirta way la hadli waayeen. nebiga xaasaskiisa ka mida la talisay oo tiri cidnaha la hadlin ee xaggaa istaag, muusadaada iyo sakiintaada qaado, xallaaqii saaloonka u yeero, timahaaga xiiro. sidii markuu rasuulku bilaabay bay istaageen saxaabada. qaarka kale sakiinta intuu u qaatay uu sigayba inuu dhib markaa gaarsiiyo. markii lasoo kala laabtay heshiiska waxaa ku jiray qolo kasta oo dadka yaryarka ka mid ah, qabiilooyinka yaryar oo raba inay kala qayb qaataan muslimiinta way ka soo safan karaan dhankooda. dhanka gaaladana saasoo kale 2 qabiil oo yaryaraa oo reer bani bakri reer qusaaca la kala yidhaahdo ayaa dagaal dhex maray. muslimiintii gaaladay u kala safnaayeen. kuwii muslimiinta la saftay ayaa weerar lagu soo qaaday. qurayshi markay ogaatay sidaa ayay kuwii ayaga la saftay hoos hubka siiyeen oo ay dhaheen hubkan qaatay la dagaalama. xataa rag bay u direen gacan siiyaa. markay ogaadeen quraysh inay ayaga heshiiskii jebiyeen, abaa sufyaan baa magaalada madiina loo diray. nebigu wuu la hadli waayey si heshiiska loo cusboonaysiiyo. abubakar buu u tegey, wuu la hadli waayey. cumar buu u tegey, wuu la hadli waayey. abaa sufyaan wuu iska soo laabtay. markaasuu rasuulku ilaahay ka baryey subxaana wa tacaala in uu maka qabsado kuna duulo, indhahoodana ilaahay ka qariyo subxaana wa tacaala. xaatib bin abi baltacataa warqad qoray, laakiin rabbi baa kashifayoo waa loo soo sheegay in gabar ay qaaday warqad uu xaatib qoray. rawlatu khaaq meel la dhahana ay marayso. intaa kabacdi in laga daba taga warqadana laga soo qaado. zubayr ibnu cawaam, cali ibni abi taalib, miqdaad ibni aswad ordahe u taga buu dhahay nebiga. inanta meesha ay joogto ugu taga, keen dhaha warqadda. hadday idinsoo siisa iska daaya, haddayse diido jirkeeda intaad fatishtaan ka soo bixiya. keena warqadda, wax dhibaatana ha gaarsiinina. intaa wixii ka dambeeyay gabadha warqadda waa laga soo qaaday. xaadib baa loo yeeray, wuu cudur daartay, ilaahayna wuu ka cafiyey subxaana wa tacaala. nebigana iska daabaa dhahay cumar markuu damcay inuu dilo, waayo badri buu ahaa xaatib. ragga wakhti ay haliyey ahaayeen oo ay soo dagaalameen baa jiray. xilli islaamku dhib ku jiray oo in yar ay ahaayeen buu ninku waxa ahaa nin taqaanaa dadaalay. marka saa darteed waa layska daayey. marka wuu baxay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayadoo ramadaan ay tahay. makuu madiinuu ka baxay asagoo u socda maka. ciidan 10,000 gaaraya ayuu nebigu watay sala allahu calayhi wasalam. mar allaala markii dahraan meel ay raada ay degeen ayaa dab weyn la shiday. reer maka waxay soo arkeen dabkaa weyn sida iyo waxa uu yahay. ninka lagu magacaabo abu sufyaan iyo xakiim ibnu xisaam iyo nin saddexaad bay ahaayeen oo ilaalo ah. intiiba faraha lagu soo dhigay, waa la soo qabtay. labadii kale way islaameen. abaa sufyaan islaamkiisii wuu daahay ilaa markii dambe la yidhi waa nin faan jeceliya, amaane ha la ammaano. markaasuu rasuulku dhahay man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin. qof allaala qofkii daarta abaa sufyaan gala waa aamin oo la dili maayo. ninkii kacbada gala waa aamin oo la dili maayo. ninkii albaabkiisa xirtaana waa aamin. saa darteed nebiga wuu galay sala allahu calayh wasalam asagoo khushuucsan, asagoo takbiirsanaya, asagoo tawxiidsanaya. maka ayadoon wax dhiiga ku daadanin yaa dhab la siiyey oo ayagoo dhan markaa la qabsaday. markuu rasuulku saa gacanta ugu dhigay ayuu yidhi war maxaad u malaynaysaan reer makay inaan idinku samayn doono? akh kariiba baa tahay bay dheen, akh wanaagsan dhalay, khayr baanu kaa rajaynaynaa. idhabuu antum tulaqaa buu yidhi, baxa, idin odhan maayo ilaa yuusuf wuxuu yidhi mooyaane laa tahriiba calaykum alyawm. maanta wax canaan ah korkiina ma aha. laa tahriiba calaykum alyawm yakfir allaahu lakum wahuwa arxamu araaximiin. ordaha oo dhaqaaqa. saasaa markaa lagu yidhi. mar allaala markii saamaxaaddii nebiga ay arkeen
qabiilooyinkii yaryaraa ee hortaagnaa reer qorayshna la qabsaday ay arkeen maxay samaynayaan ayagoo koox koox u socda afwaaj iyo jamaacay diinka ilaahay ku soo galeen subxaana wa tacaala. marka rasuulka tiibaa loo tilmaamayaa, markaasaa la leeyahay fadxigaa iyo arrimooyinka iyo nasrigaa haddaad aragto rasuulkii allow gebagabaad maraysaa, saacaddan wixii ka dambeeyay cibaado u soo jeeso. idaa jaa'a haddii uu yimaado nasrullaahi ilaahay nasrigiisa, guushii alle, waalfatxu fatxigiina uu yimaado, waa fatxu maka oo maka la furto, wara'ayta annaasa dadkiina aad aragto yadkhuluuna ayagoo soo gelgelaya fii diini illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo jamaaca iyo koox koox ah, fasabbix tasbiixsa marka bixamdi rabbika rabbigaa mahadiisa adigoo ku dheehan, wastakfirhu dembi dhaafna ilaahay weydiiso rasuulkii allow, innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaban alla tawaab ahoo towbad aqbal badan subxaana wa tacaala. calaamadda ummaddeeda layga tusiye buu yidhi, haddii aan arkana waxaa lay amray inaan diyaargaroobo. intaa ka bacdi buu tasbiixda ku badin jiray rukuucda iyo sujuudda. cabdullaahi ibnu cabbaas canug yar buu ahaa. cumar ibnu alkhadaabna mar allaala marka odayaasha qoraysh uu la falanqaynaya arrin oo go-aan ay baarlamaanku ku shirayaan, cabdullaahi buu odhan jiray fadhiisa cabdullaahiyow arrintaa la falanqay odayaashii qaar baa xanaaqay, war cumar muxuu noogu soo darayaa ka yar, annagaba ku asaga lamid ahaan qabnaaye. cumar maalintii dambe wuxuu damcay inuu tusiyo sharafta uu leeyahay, war wiilka ahlu beytkuu ka mid ahaaday buu yidhi. maalin baa ayagoo saa u wada fadhiya uu yidhi odayaashii su-aal uu weydiiyey, uu yidhi waxaad ii fasirtaan maxaa loola jeedaa idaa jaa'a nasrullahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaban. ii fasira macnaheeda. markaasay dheheen suuraddu waxay tilmaamaysaa haddii nasri nala siiyo, guul aan helno, inaan tasbiixda badino. qaarna wayba aamuseen, waxbay sheegi waayeen. ma sidaadayaa ibna cabbaas buu dhahay. ibna cabbaasoo masaasa qaala laa, mayuu dhahay odayaashu way qaldan yihiin. maxay ka hadlaysaa? waxay ka hadlaysaa ajasha nebiga buu yidhi, nebiga geeridiisay tilmaamaysaa. rasuulkii allow idaa jaa'a hadduu yimaado nasrullaahi nasriga alle iyo walfatxu guushii ilaahay oo aad aragta dadkii oo kooxa iyo jamaaca diinka u soo gelaya intii hore u diidanayd, cumrigaagi waa gebagaba. marka tasbiixso rabbigaa mahadiisa adigoo ku dheehan, dembi dhaafna weydiisa. innahu ilaahay kaana wuxuu ahaan jiray, haddana yahay, ahaana doonaa subxaana wa tacaala tawaaban alla tawaab ahoo towbada aqbala. idan waxay tilmaamaysaa buu yidhi cumarna sida ibnu cabbaas uu u sheegay iyo aniguna markaa ila tahay. marka suuraddu waa suurad cajiib badanoo suuradihii ugu soo dambeeyey soo degitaanka ayay markaa ka mid tahay. idaa jaa'a hadduu yimaado nasrullaahi nasrigii ilaahay, nasrigii alla hadduu yimaado, guushii alla hadday timaado, haddii laydiin guuleeyo, waalfatxu fatxigiina uu dhaco, makana la furto, wara'ayta annaasa dadkiina aad aragto. waayo mar allaala markii maka la furtay, wufuuddii ayagoo jamaaca iyo koox u socda yay soo islaamayeen oo ay u soo gelayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam. dadkiina aad aragto yadkhuluuna ayagoo soo gelaya fii diini illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo jameeco ah, fasabbix tasbiixsa rasuulka ilaahayow, nasih rabbiga bixamdi rabbika adigoo ah mid ku dheehan rabbigaa mahadiisa, wastakfirhu dembi dhaafna weydiiso, ilaahuy cafida badi, innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaban alla tawaab ahoo towbada aqbale. suuratu lmasad, masad suuraddeedu ayaduna waa suurad maka ah, weli waxay soo degtay awaa'ilihii horhore. rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka lasoo diray, dadka ka hor yimid aqaaribtiisa khaasatan abiilahab nin uga dhib badnaayay ma jirin. abiilahab ninka lagu magacaabo cabdilcusa ibni cabdilmutalib baa la oran jiray. nebiga adeerkii laxmi ah buu ahaa, cabdullaahi ibni cabdilmutalib buu la dhashay. saa darteed baa abiilahab waxaa loo yidhi wejigiisa iftiimahayey, saa darteed baa lahabkii holociibaa aabba looga dhigay. taana waa lagu naari doonaa. markay soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin, rasuulkii allow qaraabadaada kuwa kuugu dhowdhow u dig. buurta safa ayuu koray rasuulka, markaasuu codkiisa kan u dheer ku qayliyey. wuu isugu wacay buduuntii quraysh, hal buu ula hadlay, wuu qaas yeelay, wuu nacaam yeelay. intaa ka bacdi buu yidhi waxaad iiga warantaan haddaan idin dhaho cadow baa idin soo weerari doonaa,
weliba buurta aan saaranahay hoosteeday idinkaga soo bixi doonaan, wayna idinku galabaysan ama way idinku subxaysanayaan, ma iga rumaysanaysaan? haabay dheen runloobaad ahaan jirtay, aad iyo aad u run badanoo weligeen been kugumaanan jarribin, mana kugu ogeyn, waan ku aaminaynaa. haddaba wuxuu yidhi cadow kale ma jiree iska ilaaliya ilaahay cadaabkiisa subxaana wa tacaala. waxaan idinkaga digayaa cadaab aliim ah bayna yaday cadaabin aliim, cadaab shadiida haddii kale. mar allaala markuu sidaa yidhi yaa waxaa soo hadlay abilahab waa cabdulciza, waa nebiga adeerkii. markaasuu yidhi alihaadaa dacawtana, war ma waxaanaad noogu yeertay? tabban lak, hoog ha kugu dhacee. war tabban lak saa'ir alyawm, maanta wixii ka bilowdaba ama waxaan ahayn halaagba maba lahayne maantuu halaag kugu signaaday. ma waxaad dadkeena sharafta leh oo howlaheena aad nooga soo ceyrisay oo aad noogu yeertay ma cadaab uu iska ilaaliya uun? ma tanaad noogu wacday hoog iyo ba ha ku arkee? saasuu rasuulku ku yidhi ninka lagu magacaabo abilahab. markaasuu ilaahay soo dejiyey tabbat waxaa hoogay yadaa abilahabin, abilahab labadiisa gacmood, wa tabba waaba hoogaye. waxaa khasaaray abilahab labadiisii gacmood, wuuba khasaaraye. tabbat waxaa hoogay. tabbiga iyo hooga uu ku sheegaya nebi moxamed ma mutaysna, mana laha cadaab alla xaggiisa ka imaanayu idinkaga digay, laakiin kan beeniyey ee ka hor yimid ee inkiray kaa waaye kan hooga iyo khasaarada arkay. tabbat waxaa hoogay oo khasaaray oo dulloobay yada abilahabin, abilahab labadiisii gacmood. labada gacmood keliya lagama waday, asagoo dhan baa loola jeedaa. saasoo kalean u soo marnay kalaala in lam yantahi lanasfacan binnaasiya, foodaynu ka qabanaynaa, food beenley ah oo qada ah oo gef badan, markaasaa cadaabka lagu tuuri. idan wixii la qabanaya camalada gacmaha laga qabtaa. saa darteed ayaa abilahab labadiisii gacmood loo tilmaamay, laakiin asagoo dhan baa hoogay waaye, watabba waaba khasaaraye. markay intaa soo degtay buu yidhi lacag baan leeyahay aniga, xoolo maxay samaynayaan xoolaheyga, hantideedan isku furan doonaa haddiiba cadaabka maxamed sheegay uu run yahay. ciyaalna waan leeyahay, awlaad. markaasuu ilaahay yidhi maa agna, deeqi mayso canhu xaggiisa maaluhu, maalkiisii wamaa kasab wixii u kasbadayba. waa ciyaalkii uu dhalay, ilmaha uu dhalayna waxay u qaban karaan malaha, hantidiisii xoolihiisana waxay u anfacayaan male. horaan u soo marnay wamaa yugnii canhu maaluhu idaa taraddaa, markuu ku hoobanayo uu cadaabka ku sii socdo xoolihiisu maxay anfacayaan? waa ma jirto. wax ay tarayaan iyo wax ay u anfacayaan malaha. maa aghnaa, deeqi mayso, anfici mayso, waxba u tari mayso canhu xaggiisa, wa abilahabe maaluhu, maalkiis waa xoolihiisa, wamaa kasaba iyo wuxuu kasbado awlaad ah. sayaslaa naaran, naar buu geli doonaa, wa abilahab, naartaasoo daata lahabin, olol u saaxiib ah. lahab holac u saaxiib ah ayuu gelayaa. wamra'atuhu ay wasataslaa imra'atuhu, naagtiisana way geli doontaa. xamaalata alxatabi, xaabada guri jirtay. fii jiidiha, ayadoo luqunteeda ama qoorteeda xablun, xarig uu yahay, xarigaasoo min masadin liif ah, xarig adag oo masad ah oo liif ah, ayadoo qoortu ay ugu jirto ayay gelaysaa imtiqaanaa gabadha lagu magacaabo xaaskiisa. waa umu jamiil ayadana. arwaa baa la oran jiray, abu sufyaan bin xarb, arwaa binti xarb, abu sufyaan bay la dhalatay. taasna way gelaysaa. cadaabanimo dumar ay cadaabeeyaan nebiga ta ugu daran bay ahayd. ninkeedii ku garab istaagtay in nebiga la dhibo sala allahu calayhi wasalam, ayadana cadaabkaasay geli doontaa. laba wiil baa jiri jirtay, cutbiya cutaybe la yidhaahdo. laba gabdhood oo nebiga uu dhalay, waa ruqaya iyo umu kaltuum kala qabi jiray. markii saas looga soo dejiyey buu yidhi fura, haloo furo gabdhihiisa, haloo furo. waa loo furay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. sidoo kale gabadhan dhib aad iyo aad u badan bay ku haysay. intay dhagxaan iyo qodaxyo soo arursay waxay ku daadin jirtay baa la yidhi, laga bilaabo aqalka nebiga ilaa iyo jidka uu markaa maray. cadaabanimo heeray ka gaartay. intaa waxay rabtaa inuu dhib rasuulku asiibo. markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayadana lagu daray inay cadaabka la qaybsanayso ninkeeda. tabbat waxaa hoogay oo khasaaray yadaa abilahabin, abilahab labadiisii gacmood, wa tabba khasaariyeye, hoogiye. maa aghnaa, deeqi mayso, waxba anfici mayso, canhu xaggiisa maaluhu, maalkiisa, iyo wamaa kasaba wixii uu kasbaday ama ilmihii uu dhalay. sayaslaa naaran, naar buu gelayaa,
naartaasoo daata lahabin olol u saaxiib ah, naar holcaysa. asaga iyo naartuu galaya waa isku magac, abi lahab iyo daata lahab, olol iyo holac markaa u saaxiib ah. wamra'atuhu naagtiisuna way gelaysaa, umu jamiil, gabar aad u dhalaalaysay ahayd ayadana. umu jamiil waa la oran jiray, laakiin magaceeda waa arwa. wamra'atuhu naagtiisana way gelaysaa xamaalata alxatabi. xamaalata alxatabka maxaa laga wadaa marka? xamaalata alxatab waxaa dhici karta gabar namiimley ahoo isku dir badan bay ahayd, waxay ka shaqaynaysaba isku dir buu ahaa. namaamad namiimley ah oo dhib badan oo ummadda qoorta isku gelisa. ilan qoryo la huriye bay lamid tahay isku dirnimada. qofka dadka isku dirana jannada alla ma galo. laa yadkhulu ljannata namaam, isku dirlow jannada ilaahay ma galo subxaana wa tacaala. marka xamaalata alxatab waa suuragal. qolaa waxay dhaheen gabar lacagle soo ma ahayn, maxaa la rabay inay ragga kiraysato, shaqaale ay dhahdo qoryaha laysoo guro oy markaa ujaro siiso, ayaduna ay nasato, ayadoo nin lacag leh qaba oo xoolo ku faanaya. gabar hanti leh ah ayaa intay baxday xarigeedii masaarteeda qaadato iyo qoryaheedii raadsan jirtay ayadana. taasna waa suuragal. xamaalata alxatabi qaryahay soo guri jirtay, amase qaryahan iyo dhagxaantan iyo qodaxyaalkii ku daadin jirtay jidka nebiga uu marayo. xamaalata alxatab say noqotaba qoryo xambaartooydii ahaan jirtay, xatabkii iyo xaabada xamaali jirtay. xamaalata alxatabi, xatabka mid xamaarta oo xamaalaysa markaa ah, taana way gelaysaa. fii jiidiha qoorteeda ama luqunteeda xabalun, xarig xaal uu yahay, xarigaasoo min masadin liif ah. katiina dahabay lahaan jirto, nebiga in la dilo iyo adaawadiisay u iibisay, markaasaa xarig naareed loogu bedeli, qoortana loo gelinaya maalinta qiyaamaha. markii la soo dejiyey suuradan bay mooday shicir iyo gabay nebiga ku caayay. dhagax afka gacanta buuxi intay soo qaadatay yay ula timid abubakar iyo nebiga oo kacbada ag fadhiya, tiri aawi saaxiibka abubakaro, shicir buu igu soo caayay maanta. war saaxiibkii shicir ma yaqaanay ka daa qaylada. markaasay tiri wallaahi maanta haddaan arki lahaa dhagaxaana afkaan uga garaaci lahaa. markaasay shicir ayadoo iska dhigaysa gabar qiimo badan, waxoogaa abyaad shiciray meesha ka tirisay. waa mudamim damiim ah moxamed, ma ogolin diintiisii, ma rabno amarkiisii, waan caasinay. shicir noocaas intay meesha ka timid iska soo dhaqaaqday. abubakar baa yaaban, yaa rasuul allah miyay ku arkaynin miya? gabadha kuuma jeeda miya? ilaahay baa indhaheeda iga qariya buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ilaahay ayaa indhaheeda iga indhasaaray. gabar aad u dhib badan bay ahayd, xarig liif ah naagay qoorta ugu xiran tahay. haddaad aragta qiyaamaha waa umu jamiile, ogow waa xaaskii abilahabe. tabbat waxaa hoogay ama khasaaray yadaa abilahabin, abilahab labadiisii gacmood. wa tabba wuuba khasaaraye. maa aghnaa maxay tartay, maa aghnaa haddii kala deeqi mayso, anfici mayso, canhu xaggiisa maaluhu maalkiisii, wamaa kasaba wixii uu kasbaday oo owlaad ah. sayaslaa naaran, naar buuna geli abilahab, naar buu gelayaa, naar buu geli doonaa daata lahabin, holac u saaxiib ah. naar hol ay soo huraysa ayuu markaa gelayaa. wamra'atuhu naagtiisuna way gelaysaa xamaalata alxatabi, xatabkii xaabada guri jirtay. fii jiidiha qoorteeda iyo luqunteeda xabalun, xarig xaal uu yahay oo min masadin liif ah. oo markaa arag suurat likhlaas. ikhlaas suuradeeda magaceedaad ka fahmi kartaa. waa suuraddii ilaahay subxaanahu watacaala nala ku baraayay. sif lanaa rabbaka bay ku dhaheen. maxamedow rabbigaa noo sifayba, ma dahab baa, ma dhayman baa, ma qalin baa, ma luul baa, muxuu ka samaysan yahay? aniga ilaahayaalkeena waa kan waa loo jeedaa. adiga rabbigaa noo sifayba. bismi illaahi araxmaani araxiim. qul dheh rasuulka ilaahayow, huwa allaahu axad, huwa asagu allaahu ilaahay waaye. waxa aad noo sifay dhahaysaan iyo macbuudkana qalqay waa allah. axadun ay waaxidun waa mid keliya, allaahu ilaahay. alsamadu waa alla samad ah, waa alla xawaa'ijta iyo danaha loo sheegto, dhibka iyo mashaakilaadka lala qastaa. allaahu ilaahay. alsamadu waa alla xawaa'ijta iyo dhibaatada loo bandhigto, mashaakilaadkaa loo sheegtaa. rabbow dhibkaasaa ihaya iga qaad, ilaahyo muraad baan leeyahay ii sahal, ilaahu waan xanuunsanahay ii caafi, ilaahu xoolaan u baahanahay isii, ilaahu dhibkaa iyo dhibkaasaa ihaya dhib qaada, adiga waaye iga qaad. ilaahay waa samad, waa alla xawaa'ijta lala qasto, waa alla wax loo bandhigto subxaana wa tacaala. ama ilaahay asamad waa alla sayid ah. lam yalid wax ma dhalin, walam yuulad lama dhalin, walam yakun lahu uma sugnaanin kufuwan axadan, kuf u dhigma, axad ilaahay u qalmoo facjin ay yihiin
oo walaal oo kale ah kaana markaa ma jiro. si fiican bay suuradda ilaahay noo baraysaa subxaana wa tacaala. suuratu ikhlaas waa suurad cajiib badan, waa suurad barax tirta ilaahay subxaana wa tacaala, waa suurad qofka ilaahay uu ku fahmi karo subxaana wa tacaala. qofka ilaahay raba inuu barto suuraddan buu ku baran karaa. sidaa darteed baa thuluthul qur'aan lagu tilmaamaa suuradda. suuraddan keligeed oo aad akhriso waxay u dhigantaa 3 qur'aanka marka loo dhiga qayb ka mida adigoo akhriyey. waa suurad aad iyo aad u qiimo badan oo sharaf leh. waa suurad ilaahay subxaana wa tacaala iska kayn barayo. qul waxaad dhahdaa rasuulka ilaahayow, huwa allaahu waa ilaahay, axadun waa mid axad ah. ilaahay waa alla keligii ah subxaana wa tacaala. soo ma rabtaan inaad ilaahay barataan? ilaahay waa mid. soo ma rabtaan ilahay idan laga sifeey? waa waaxid. qul inamaa ana basharun mithlukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid. ilaahiinu waa ilaah keliya subxaana wa tacaala. faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadan. qul dheh huwa allaahu, huwa asagu allaahu waa allah, ama huwa allaahu ilaahay axadun waa alla axad ah, waa alla keligii ah subxaana wa tacaala. wa ilaahukum ilaahun waaxid. ilaahiinu waa ilaah keliya. allaahu ilaahay assamadu waa alla umuuraha loo bandhigto. asamad xawaa'ijta, danaha, dhibaatooyinka lala qastaa ilaahay. yas'aluhu man fi الsamaawaati wاlard kula yawmin huwa fii sha'ni subxaana wa tacaala. samaawaadkii arlada waxaa ku sugan oo dhan asagay baryaan, asagay u gacan horsadaan, asagay tuugaan, asagay tuugsadaan. yas'aluhu man fi الsamaawaati wاlard kula yawmin, maalin kasta, huwa fii sha'n, sha'nii xalad buu ilaahay ku jiraa. idan allahu ilaahay assamadu waa alla umuuraha loo bandhigtay xawaa'ijta iyo danaha. lam yalid wax ma dhalin ilaahay, walam yuulad lamana dhalin. ilaahay waalidna ma aha, wiilna ma aha oo waalid ma laha subxaana wa tacaala. waa ilaahay keligii ah, uma baahna owlaad. yaa u baahan iyo waalid? waa dad maciin u baahan, dad dhimanayo faracooda baaba'ayo raba in faracooda uu sii jiro. ninna u baahan baa walaal u baahan. intaba ilaahay wuu ka nasahan yahay subxaana wa tacaala. wamaa yanbagii liraxmaan an yatakida waladan in kullu man fi الsamaawaati wاlardi ilaa aati araxmaani cabdan laqad axsaahum wacaddahum cadda wakulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda. saa darteed buu ilaahay yidhi uma bannaana allah raxmaanka inuu walad samaysto. ilaahay inuu walad samaysta mustaxiil subxaana wa tacaala. wamaa yanbagii liraxmaani an yatakida waladan. muxuu ku falayaa? in kullu man fi الsamaawaati wاlardi ilaa aati araxmaani cabdan. samaawaat iyo arlo waxa ku jira oo dhan ayagoo addoomi ilaahay u imaanayaan subxaana wa tacaala. ma axadkaasaa walad u baahan? ma axadkaasaa owlaad u baahan? waa ma jirto. saa darteed ilaahay wuu ka nasahan yahay camaa yaquuluuna culuwan kabiira. waxay ku tilmaamayaan ciisa walad ilaahay ah, maryamaa saa ah, 3 ilaahay baa jirta, thaalithu 3. kulli subxaanahu wa tacaala wuu ka nasahan yahay, waa uu ka hufan yahay. am lahum ilaahun hayru allah? subxaana allah, ilaahay baa nasahan. am lahum ilaahun, ma ilaahyay leeyihiin oo ilaahay ka soo haray subxaana wa tacaala? waa ma jiro. ilaahay ma ilaah kaloo asaga aan ahayn buu leeyahay? waa ma jiro. ilaahay baa ka nasahan camaa yushrikuuna, waxay u sharig yeelayaan. kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiban. waxay ku hadlayaan waa been iyo iftaro buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. ilaahay baa owlaad leh darteed samaawaadkana way la go'go'i lahaayeen, dhulkuna way la jeexjeexmi lahaayeen, buuruhuna way la soo daadan lahaayeen. an dacow liraxmaani waladan, raxmaanka inay walad u sameeyeen sababteeda. idan qul dheh huwa allaahu ilaahay axadun waa mid axad ah, waa keligii. allaahu samad, ilaahay waa alla samad ah, waa alla sayid ah, waa alla umuurahay dhibaatooyinka loola qasto loola aado. lam yalid wax ma dhalin, ma laha ilmo. walam yuulad asagana lama dhalino, ma laha waalid. walam yakun lahu, uma sugnaanin, uma ahaan lahu asaga kufu'an wax u dhigma. kuf oo axad ah ma jiro. axad asaga u dhigma oo ilaahay oo kale mid la ah, taana markaa mala. suuratu falaq, falaq iyo naas waa 2 suuradood isku mar bay soo degeen baa la yidhaahdaa. 11 aayadood bay ka kooban yihiin marka laysku daro. 5 oo falaq ah iyo 6 oo naas ah. waxay tilmaamaysaa baa la yidhi qiso nebiga sala allahu calayh wasalam lagu tilmaamo inuu nin yahuudi ah, weliid ibnu acsan la yidhaahdo, uu sixray nebiga sala allahu calayh wasalam. wuxuu ku sixray timihiisii shanlada wixii ka harhara iyo
qashin iyo wax daran buu isku daray. ilaa saaxiroolaha wax qashin iyo wax bakti uu isku daraa mar walba. intuu kow iyo 10 gunud ka dhigay yuu mid kasta cirbad ku taagay, ceel meesha ku yiilay hoostiisana markaa geliyey. xaalku markuu meeshaa maraayay ayaa waxaa dhacday in rasuulku uu isku arkay arrin uusan isku arki jirin. arrin buu rabaa inuu sameeyo, mana samayn karo. wuxuu u maleeyaa inuu qabtay. xagga cibaadada saliim buu ka ahaa, laakiin waa dhinaca kale. matal wuxuu u maleeya inuu xaaskiisii isticmaalay, manuusan isticmaalin sala allahu calayhi wasalam. uu xanuunsaday nebiga. asagoo saa u jiifa ayaa waxaa u yimid 2 nin ama 2 malag, jibriil iyo mikaa'iil. midna madaxa agtiisu ka fadhiistay baa la yidhi, midna lugaha agtiisa. 2 nin baa sheekaystay. war ninku maxaa ku dhacay? war ninku wuu sixran yahay. yaa sixray? weliid baa sixray, yahuudiga laga yidhaahdo. sidaa darteed muxuu ku sixray arrimooyinka? xaggee yaalaan meesha? waxyaabun bay ku sheekaysteen, way isaga tageen. nebiyaduna markay jiifanayaan qalbiga way ka soo jeedaan, indhahun bay ka hurdaan. sidaa darteed baariyada ugu timaada hurdada waxii ay tahay aad looma hurdisiiyo, indhahun bay ka hurdayaan, qalbigana way ka soo jeedaan. sidii buu u maqlaya. markuu soo kacay baa koox saxaaba uu u diray, cali bn abi taalib uu ku jiro. waa la soo saaray. markii la soo saaray baa hal gunudba marka la furo hal aayad baa la akhrinaya. hal aayadba marka la akhriya mid baa la furahayay, musbaar ama cirbad ku taagnaa in laga saaraayo sala allahu calayhi wasalam. intaa ka bacdi kii 11aad markii saa loo akhriyeyna dabar in laga ku xirnaa in laga furay oo kale buu noqday. nashaad buu markaa helay. sidaa darteed buu dhahay 2dan suurad mucaawadataan baa la yidhaahdaa. isku magangeliya ilaahay subxaana watacaala. markaad seexanaysaana aqriya, jasadkana markaa marsada insha allah. wax idin dhibayaa markaa ma jire. waxaa suuragal ah suuraduhu inay horey u soo degeen. intaa ka bacdina maka, kadibna madiina markii nebiga lagu sixray, yahuudiga uu sixray, saa loo akhriyey laguna furay. nebiga ducooyin fara badan buu ku ducaysan jiray sala allahu calayhi wasalam intaysa 2dan suurad soo degin. markay soo degeen dhammaan wuu ka wada tegay, 2dan buuna qaatay. marka waa 2 suuradoo cajiib badan. bismi illaahi araxmaani araxiim. suuratu lfalaq, falaq suuradeeda. qul waxaad dhahdaa acuudu waxaan magan galay birabbi lfalaqi, allah wax dilaaciya. falaqa maxaa loola jeedaa? waa faaliqu lisbaax, allah subaxa dilaaciya. habeenkii oo mugdi ah yaad subaxay waxaad moodaa in inta la dilaaciyey laga soo dhex saaray. birabbi lfalaq. waxaa suuragala ninka beeralayga markuu dhulka qodo xabadda uu ku ridayo, sida ilaahay tilmaamay, ina allaha faaliqu lxabbi wannaba. ilaah waa allah xabadda kala dilaaciya ee geedka weyn ka soo saara. nabuhuna waa laftimireedka. marka la abuuree la beero, ilaahay baa intuu dilaaciyo geed weyn ka soo bixinaya. idan waa ilaahay falaqa ah. qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi lfalaqi, falaqa iyo dhambalanka rabbiga u saaxiibka ah. allaha wax kala dhambala, allah wax kala dilaaciya, habeenkiina subaxa ka dhambala. ama xabadda marka badarka lagu rida dhulka, allaha inta dilaaciyee jeexa geedka weyn ka soo bixiya. min shari maa, shay shartii ayaan ka magan galay khalaqa uu abuuray. shartii uu uumayna asagaan ka magan galay. ilaan asagaa shartii qalqay, asagun baa laga magangeli subxaana wa tacaala. wa min shari qaasiqin, habeenka shartiisaan ka magan galay. waa cawaba. idaa waqaba marka uu soo galo, ama idaa waqaba markuu mugdiyoobo. mugdiga habeenkii shar badan baa jirtaa. saa darteed maa habeenku inuu sharoolo yahay, laakiin waxyaabo fara badan oo aan maalintii la arki karin baa ayaa jira. bahladu inta badan habeenkii bay socdaan. qofku wuu seexanayaa, afkiisaa furan, dhagihiisiyaa furan. ilaahay subxaana wa tacaala sharta habeenka jirtana ilaahay baan ka magan galay. wa min shari naffaafaati, kuwa wax afuufa shartoodana ilaahay baan ka magan galay. fi lcuqadi, gunudaha afuufa. ninkii shay gunuda ee afuufa sixir buu sameeyey. qofkii sixir sameeya faqad ashrak, wuu shariig yeelay. saa darteed wa min shari naffaafaati, baktii waxyaaba intay isku dardaraan yay afuufaan. afuufitaanka ay afuufayaan fi lcuqadi, gunudaha dhexdooda, kuwa shartoodan ilaahay baan ka magan galay. wa min shari xaasidin, xaasid shartiisana ilaahay baan ka magan galay. idaa xasada markuu xasdaayo. idan suuraddu waxay noo bayaaninaysaa dhibaatooyin fara badan baa jira. cid aan alla ahayn oo naga badbaadin karaanina ma jiro. cid aan alla ahayn oo laga magangeli karaayna ma jiro. xataa haddaan isku dayno inaan cid kala aadno, waxba nagama anfici karaan, waxba nooma deeqi karaan, waxba nagama celin karaan. qul dheh rasuulka ilaahayow acuudu waxaan magan galay birabbi lfalaqi, allah wax kala dilaaciya.
min shari maa shay shartii baan ka magan galay khalaqa uu abuuray wa min shari gaasiqin habeenka shartiisa baan ka magan galay idaa waqaw markuu soo galo ama markuu mugdiyoobo xataa waa taxadiisku tilmaamaya maqribka marka la gaaro ciyaalka xataa inay bannaanka ku ciyaaraan ma wanaagsana. ciyaalka guryaha ku soo celiya buu dhahay nebiga, guryaha ku reeba. waa xiina idin yantashir shayaadiintu xilligaasay faafaan, adkaartii ma yaqaaniin, ma akhrisan karaan. guryaha ku celiya maqribkii marka la gaara cadceedu dhacdo ilaa waxoogaa mugdiga uu sii bato, cishaa'iga oo kale iska sii daaya markaa ha ciyaaraane. guryihiina xirta buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam, ilaahay magaciisa ku xusa. faynuusi misbaaxda iska damiya, ilaahay magaciisa ku xusa. weelasha guriga idiin yaala daboola, ilaahay magaciisa ku xusa. hadda xataa dabool u weysaan caday intaad soo qaadda ama cuud ama geed, ilaahay magaciisa adoo ku xusaya saa u siisaan oo ku dadab. waayo habeenkii mararka gobol ka mida cudur baa soo degaa, waxyaabaa yimaada. weel daboolanna ma faydaan, weel furanna kama tagaan. marka saa darteed weelashana waa la dabooshaa habeenkii, albaabaha waa la xirtaa, magaca ilaahay baa lagu xusaa subxaana wa tacaala. sibraarada weelasha kulli in la daboolaa hagaagsan. xaaladaasaa la tilmaamayaa marka wa min shari gaasiqin habeenka shartiisaan ilaahay ka magan galay madowga idaa waqaw markuu madoobaado ama uu soo galo ama uu mugdiyoobo. wa min shari naffaafaati kuwa sixirkii waxyaabaha kale afuufa shartooda filcuqadi gunudaha dhexdooda afuufa ayaan ka magan galay ilaahay. wa min shari xaasidin xaasidka shartiisaan ilaahay ka magan galay dheh idaa xasada markuu xasdaayo. marka sixirku aad buu u dhib badan yahay, waana mashaakil. wuxuu ka mid yahay camalada lagu gaaloobo. wamaa kafara sulaymaan walaakina ashayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra. shayaadiintii baa kufrisoo dadkay sixirka barayeen buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. idan sixirku xaaladiisu waa sida 7 dembi ee lagu cadaab mutaysto shirkiga kadibna sixirkaa markaa ku jiray. warka wa min shari naffaafaati fi lcuqadi wa min shari xaasidin xaasidkaa kuu soo haray. xaasidku waa wax dhib badan. xasadka nebigu waa nooga dhigi jiray iyaakum walxasad, war xaasidnimada iska ilaaliya. xaasidnimada qofka xasanaadkiisay cuntaa sida uu qoryaha dabka ama cooska u cuno oo kale dabka. saa darteed baa waxaana laka rabaa inaan xaasidnimada iska ilaalino. am yaxsuduuna annaas calaa maa aataahum allahu min fadlihi, ma dadkaad ku xasdaysaan wixii fadliga ilaahay siiyey. war ninkan quruxda ilaahay sii maad ku xasdaysaan, gabadhan cilmiga ilaahay bari maad ku xasdaysaan, xoolaha ilaahay sii maad ku xasdaysaan, gurigiisii u fiicnaa iyo reerkiisii u wanaagsanaa miyaad ku xasdaysaan. dadaa waxayba arki karinba wanaagga dadka bani aadamkay haystaan, mar walba ka daba shaqeeya. xaasidnimadu way xun tahay, xaasidnimadu ma wanaagsana, xaasidnimadu qofku naar bay gelisaa, xaasidnimada qofka xasanaadkiisay cuntaa. idan ha xasdin dadka. am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi, wixii ilaahay dadka fadligiisuu siiyey miyaad ku xasdaysaan. was'al allaha min fadlihi, war ilaahay fadligiisa weydiista. ilaahayaa wax bixiya, ilahay waa waxbixinta iskale. walaalkaa ku farax khayrka uu haysto. saa darteed xaasidnimo waxaa la yidhaahdaa waa inaad jeclaysata nimco walaalkaa haysta inay ka soo zuusho adina ay kuu timaado, inay ka soo baaba'do adiga ay kuu timaado. laakiin markaad dhahda ilaahu kaasoo kale yaa kaa dhig, laftigeeda waa xaasidnimo, waa mamnuuc. ilaa laba maahane, nin ilaahay intuu cilmi baray, diin baray, xikmad baray, ku camal falaya, dadkana baraya, allow kaasoo kale yaa kaa dhig waad dhihi kartaa. iyo qof ilaahay inta hantii maal fara badan siiyey lagu diray inuu ku bixiyo kuna halaaga xaqa. labada inaad dhahda kaasoo kale yaa kaa dhiga, xataa kaasoo kale yaa kaa dhiga mamnuuc waayo, ilaa labadaa maahane. marka xaasidkuna aad buu u dhib badan yahay. bismi illaahi araxmaani araxiim, suuratu nnaas. bismi illaahi araxmaani araxiim. qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi nnaasi dadka rabbigoodii, meliki nnaas boqorkii dadka, ilaahi nnaas ilaahii dadka. maaha 3 ilaaho, waa hal ilaahoo marna birabbi nnaas noqday, marna meliki nnaas ku sifoobay, marna ilaahi nnaas. maxaan ka magan galay marka? min shari alwaswaasi midka wax waswaasiya shartiisa ayaan ilaahay ka magan galay. alkhannaasi ee dhuumashada badan, gadaaluu istaaga badan, alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda, kaasoo dadka laabahooda waswaasiya oo min aljinnati jin ah waannaasi insina ah. waa shayطaanuljinina waa la helaa, shayطaan insina waa la helaa, labadaba way jiraan. qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi nnaasi barbaaryaha dadka, rabbiga dadka ayaan magan galay. ilaah baana rabbeeyey, ilaahay baana barbaariya, waxaan u baahannahay na siiya. meliki nnaasi waa boqorkii dadka,
dadka oo dhan boqorkoodii ah ilaahi nnaasi ilaahii dadka ayaan magan galay waxaan ka magan galay min shari alwaswaasi midka wax waswaasiya shartiisa alkhannaas waa shaydaanka khannaas waayo waa mid gadaalo istaagid badan waa mid dhuudhuumasho badan shaydaanku khannaas wuxuu ku noqday markaad ilaahay xusayso waa kaa tegayaa wuu kuu dhuuman laakiin ogow meel dheerkaa aadi maayo meel buu kugu gabbanayaa in yar oo aad ilowdo dikri ilaah buu sugayaa isla markii waa kuu imaanayaa intaad rabbigaa xusayso waa kaa tegayaa laakiin waa khannaasoo waa dhuudhuumasho badan yahay waa dib u istaagid badan yahay khannaas waa midka khannaaska ahee dhuudhuumashada badan alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda waan aragnay markaan salaada galno heer wuxuuna kala gaarsiinayaa aan kala garan weyno ma 3 baa tukatay mase 4 macnaa waswaas aad buu u waswaasiyaa dadka laabahooda quluubtooda طهارته kaa waswaasinayaa ninba maanta oo dhan suulida ka bixinid lugta dhaq dhibic biya hadduu arko waa dhaqaya waa aadaya saliga asoo ku istaagay wax yar xataa aan waxba ahayn buu dareemayaa shaytaanka laga yaabo inuu afuufo uu biyo kale u ka dhigo waa baxaya intaasay salaadi ku dhaafaysaa qofaa nawaytu sumaantoo dhan u dhahay salaadii laga baxaya idan cadow kan u xun ee u weyn waay saa darteed baana laga rabaa inaan cadownimo ka dhigano inaan cadow ka samaysano ina shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa idinkana cadow ka dhigta min shari اlwaswaasi kan wax waswaasiya shartiisa alkhannaasi ee dhuudhuumashada badan alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiya fii suduuri الnaasi dadka laabahooda ومن الجنة جني والناس إنسي شيطان الجن أعوذ بالله بقفنا والناس لكن ودب بدن هي شيطان كإنسي وحكت بدن ملها ريري واسكو دريا واستقاليان وحياة فربدن بوكو شيغيا أرين أنجيرين مرك الشيطان كإنسي أهاد بو دب بدن أساقنا إن لسك إلالي أيا وناكسن من شر الوسواس متك وحوسواسية شرتيسة الخناس خناس كأهي دبو استاقد بدن gadaal u gurashada badan ilaahay magaciisa ma xustay wuu kaa tegayaa alladii yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda oo min aljinnati jinni ah wannaasi insi ama naaska ama dadkana markaa ka mid ah ilaa xaqanu ka baryayno xaqana waafajiy wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam